السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كسر دواذا جنال كتير حلنا كهير وهاد أوجا براتان مركز تينات كده ستان أما أكدا وتان عشرة ذا أدكم مهم كأه وإذن سو جيدنا هي تكتور كا عاو وحنك بالله بينا عشر كيني أسو كونتينيوسية وسيس عنايو ليفلت محل دها رأيهان ليفلت dadka waxay ka aaminsan yihiin inaa fahansiyo waaye leaflet waxaa la dhahaa warqadda ku dhex jirto daawada ama baakadka daawada ku dhex jirto dhexdeeda warqadda ku dhex jirto la dhahaa leaflet ama ahaato caplet ama ahaato capsule ama ahaato tablet ama ahaato syrup sharabo ku dhex jiri kartaa warqad leaflet warqadda leafletka macnaheeda waxaa loola jeedaa daawada isticmaalkeeda dooskeeda intradikeedkeeda waxyaabahaas dhan aa ku qoran loo isticmaalayo intaadan isticmaalin ka hor warqadda ku qoran daawada waa ina akhrisataa oo si wanaagsan u fahantaa kadib ayaa isticmaali kartaa daawada leaflet ayaa la dhahaa warqadaas leaflet waxay ku imaataa 10 siyaabood oo kala duwan leaflet warqadda daawada ku dhex jirto waxay ku imaataa 10 siyaabood oo kala duwan midda koowaad waxay ku imaataa composition kiimikada daawada ay ka samaysan tahay lambar 2 indication use isticmaalka daawada ay ka samaysan tahay lambar 3 side effect saameynta daawada yeelan karto 4 adverse and effect ka hortag iyo saameyn warning oo ah digniin daawada digniin ku sameynayso lambar 6 risk and precaution khatarta ka dhalan karta daawada lambar 7 dose and administration oo ah qiyaas ama maamulida daawada lambar 8 contraindication la miisaami karo daawadan waa in miisaankeeda iyo qofka la siina ay isku cabirtaa lambar 9 manufacture date xilliga ay soo baxday daawada waa ina ogtahay ama warqadda ay ku qoran tahay lambar 10 oo ah expired date xilliga ay dhacayso daawadan waa xilliga dhacayso waa ina ogaataa ما شاء الله waxaa halkaas noogu eeg cashirkeeni caawa waad ku mahadsantihiin intana daawatay ee dhageysatay fadlan hanaga ilaawinaha like subscribe share and comment wabillahi tawfiiq assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh